صوتهم أريان وريني أنا حشوني نبى طاي قولي أنا معك سوداني قبل معك كتبري جلاي كتبري ما حشوني اسمي أرطو فرق قولي أنا ما بحاول الناس كان على البراء تجي تيجي معك لكن جوانا سحن عقرة والمية حتى كسردي ما حتى أيوة حرامات خلص ودع كود ولا له maxaa u imaaday غلط محورة فرشك ولا المعنى محا صوت انت خالد يا ريس صورت ما هي ديست waxaan soo doonmo idhiisana sida buuq iyo qaale usoo gashay لكن دعوة كيسة هاي laan la qobol ay hadal maxaa هذا islaanteeda soo doontay مسك صدوري حوالم يا أيضا مسك وقت قاعد مسك هذا يعني maya ما قبل عرفت دشة عرفت أباه دشة صار دون تكيلته مية تحضر صوت دوننا وجهك كوسو دونس وجهك وا eedo watii baaritaano iyo waxaas gabadha u dirto baaritaano iyo waxaas ku sameysay daawooyinka u qortay way qaadataa marka bal warbixin naga siiyo masaakayna adigoo nala hadlina iska soo kala haday warbixin naga sii bal gabadha xaaladeeda degdegay bukaana iyaala maxaa si fiican marka shaqaan u soo degdegayay gabadha aan war inka siiyo horta gabadhi wuxuu ka soo dhamaadeen alxamdulilah wal aqlin haa uu ka soo dhamaaday may eedo waa caafimaad hawlwalin ma fahmin hawlwali insha Allah in kale ilaahay ku siinaya inaga uu ka soo dhamaaday daawooyin oo hadduu kugu hari lahaa xanuuna kugu hari lahaa xanuuna dareemin had see dareemaysaa hadda fiican alxamdulilah xanuun baabiya siisay xanuun xanuun baabiya ku joogtaan waa wada dhaqay marka daawooyinka way ku soo kalin gareeyeen hadda waxba ma ku jiraan kalina tahay maasha Allah kale daawooyinka waa ku qoray kuwa fiitamiinada oo dhiig ku soo celin laba dhiig baxday maqsina dhiig baxday si fiican marka kuwa fiitamiinada ah oo dhiig u soo celinayeen waan u qoray annagana waa inaan cunto fiican u karinaa gabadhan waa inay horta jiiftaa si fiican aysan ka daawooyinka mid hurdana ku dar fiitamiinada hurdada keena way ku jiraa fiitamiinada hurdo leh oo nasiino badan inay heshaan la rabaa si fiican marka waa inay jiifataa aysan ka kicin ma fahamtay waa inaad jiifataa oo ka kicin aad warwareegin waa mid labaad waa inaad stresska iska daysaa stresska kooda moogtay dhib ay ku keenaysaa waa wax kasta ficil kasta maskaxda waa moogtay marka waa inaad stress iska daysaa insha Allah daawooyinkaagana si fiican waqtigooda u qaadataa cunto fiicanna waa inaad cuntaa ma fahamtay cuntadaada cunto dheelitiran waa inaad cuntaa daawadana waqtigeeda aad qaadataa aad jiifataa aad nasataa maskaxdaadana program dhan aad ka saartaa ilmahan yarna aadan isku mashquulin way tageen adna ka daba tagin way tageen ka daba tagin marka eedo cunugaas uu tagay ka daba tagin daawooyinkii walaasha ku siisayna marna saaxiibada si fiican u qaado gurigana waa kugu daryeelaynaa insha Allah xagana anaa ku joog xagana waa lagu joogaa ma fahamtay si fiican wax kasta u baahantayna waa lagu siinayaa daawaha noqoto cuntaha noqoto nasiinaha noqoto maskax dejis ha noqoto wax walba waa laga dhelitiraa adigana waa maskaxdaada tushuush dhanka saar gabar yaraad tahay saan u qurux badan markaan nasatidna odaygaaga insha Allah waa heshiin doontaan oo lagu celinaa eedo insha Allah dhaama jiraan عرس مجرى ولا غفراني بس ماي من دلاي من فلاني بس ماي waxaa fulinka yaa lagu degdegin eedo fulinka ma fiicno ماي eedo naag la dil adeeg ma ugu horeysan fahamtay weligood Soomaalida dili jireen wax yaroo baxshooyin oo kugu dhufto wax ma kugu hada eedo baxshooyin ka waa ilmahan inay dilmaan way qornaa xaga la ka qornaa eedo ninkaaga yaa lagu dirin gabar yara tahay furinkana waa ceeb yaa soo wacay hore wana telefoonka xataa laga fogeeyay yaa soo wacayeen عبد واي هاي سو هذا الو سو هذا سلانتيدا bukaan waa daawo ku socoto waxa dheeleedna dheh isbitaalka joogtaa daawo ku socoto filimooyin ka socoto social media dil inta laga hayo ilo soo dhawdaa ما هذا إن هذا شنو لو ما بقولها لما أقول فيري ولا لو إسبيت ماشان واسمير إسبيتال مثلاً تبوق يقيل لقى مرة بو كتر إيه كتر نقرأ فرير كيس كتر إيه من كاقوا كاسو صورة شو عاي
ما فهمتي مكانها soo rijaacay wuuna kuu baahan yahay ninkaaga maxaa ku dhacay waa kan leh qalad siduu ku dhacay lama dhehe sidee loo xaliyaa baa dhib ku geystay oo hadeertan maxaa ku dhacay may eedo insha Allah waa la hadlaynaa dadka dhana odayaasha u wacaynaa xageena kuwa ka socday xagiisa kuwa ka socdo mar dambe hadduu farsaas kuu saaro in lagaa furaayo oo xataa hadduu asaga ku furin aniga kaa furaayo dalqada afkayga ka yeernaa ma fahantay marka eedo maxaan dulqaado saaxiibadaana waa dumar oo haddana waa dhalinyaro furinka in lagu degdegana ma fiicno markii lagu furo aa ogaanaysaa xanuunkuu leeyahay meelaad ka laabatidna ma joogi doonto ma fahantay eedo maxaan marka waxaan ku leeyahay gurigaaga dhaqo marka daawooyinka iska qaado gurigeena ku qaadato waan ku baxnaaninaynaa eedo adigoo fiicnaadoo soo qurux badnaaday yaa asagoo ku jecel oo raali adinkoo isku aa gurigiina ku laabanaysaan hayada eedo waxba yaysan kuu sheekayn dumarka iyo dhalinyarada haye eedo waa sii baxayn gabadhan waxa weeye garabka sii qabayo sii wareerin ka badanaysa insha Allah eedo waa caafimaadaysaa insha Allah tartiib ha wareerin isjoog ina dhacdid ma aragtay aan ka baqaay tartiib u fariiso insha Allah waa caafimaadaysaa alxamdulilah dhib ma jiro hadda ka waran caafimaadkaaga shalay maanta waa fiican alxamdulilah haye insha Allah eedo waa fiicnaanaysaa ninkaas la welwel igu hayo eedo waxaa iiga sheekaysaa qisada ninkaan isku guursateen iyo bal xaaladiina iyo dagaalkiina waxaas iiga sheekeedo eedo ninkaan markii hore way jeclaa ku dhay jacayl igu soo jiite waa reerkeena iga doonte waa i guursade laakiin markii uu i guursade misisaan uu u dhashay isqa qarinaya markii uu i guursade markaas wejigiisa runta la soo baxay muxuu bilaabay inuu igu qaaliyo inuu i dilo cunto markaa u kariyo wejigu iga dhufanaya biyaha u keeno wejigu iga daadina haye marka xumaan badan uu soo marsiiyay wax walba waa ugu dul qaadanaya ninkaygu ahaay laakiin maalintii uu cunugayga soo riday ninkaas maalintaas asaga cunugayga suu u soo dhacay asagana guriga nafsadeeda uga dhacay marka eedo ilmana muu rabin ninka ilma ma ku qanacsaneen ilmahaas ka xiro igu dhahe marka iskuansanayeen ku heshiisay in ilma aan la dhalin eedo markii hore maya horta markaas guursanay ku heshiine markaas uu keenay adi maxaa u ogolaatay ma rabi uu igu dhahay aan qof oo leh cunuga ani ma rabi maxaa cunuga dhalaysaa ani waa rabi laakiin qof oo saan camal u dhaqmaayo oo dabeecadan leh oo mar walba ku dilaayo anna waxaa is dhahe maxaa markaas iskaga furweyso ku yiri ilmo ma rabi markaas maxaa u furu iskaga furu eed waa ogtay gabar markaas la arooso wadana reerkooda laga soo wado Soomaaliya laga soo arooso hadii isla markii la arooso dadka hadii la furo dadka waa ogtay wixii dhahayaan marka ani maxay is dhahay gurigaada iska joog dadkii kugu sheekaysanay magaaladan waa iska xuntahay ma wanaagsano magaalada dadku u joogaa miyaa eed qof ma joogo asaga qofka ahaan ma joogo hada anaga leelana ma ogeen inay ani magaaladan degan tahay ilaan bariga xagga kusoo kala tagnay leelo waxay ugu tiri ninkaas hadda ka hor aan isku dhacnay gabadhaas tirteeda eed way isku dhaceen laakiin asaga weyn kiraan wuxuu dhahay ani saaxiibada xumaan u qabay ayada xumaanta dhan keentay anina hadda waa ku guursan rabaa saaxiibta waxay rabtaa inay kala fogeyso adi saaxiibtay wax xumaan iiga sheegay oo igu diray adi ma aamintay marka maya anoo aaminsaneen xataa waxay is dhahay leelo waayo qof oo waxaa waaye kulkulul oo mar walba karsan marka waxay is dhahay qofkan qalad ay u fahamtay ani ma bisdeen ninka saan u xumaana qaladkan dhan ma ka aaminsaneen si fiican qof oo saas u fiicnaa oo mar walba i wanaajin jiray xumaantan la soo baxa ilaa hadda maskaxdeeda way ka weynaa wali nin oo cunugiisa dilaayo ninkaas kulay nin fiican maaha aad ugu xunyahay ninkaas bal hadeertaan warkuu la yimaado aan sugaynaa kowdhe adna war ma ka sugaay ninkaas soo lagama yaabo inuu ilaahay qalbigiisa daayo kusoo dejiyo uu fiicnaado ma eeda ninkaas ma fiicnaanayo waa qof 5 sano dhan ani waxa is dhahay 5 sano dhan waxa uu la joogo uu fiicnaanayo iska jaw fiicnaanayo ma bisbedelaay 5 sano dhan qof isbedelaay soo aniga ma kugu la talinayo gurigaaga burburi kowdhe eedo laakiin insha Allah meesha qayrka ku jiro waan ku duceynaa adna istiqaaratu kowdhe eedo
marka insha Allah wax walbana way fiicnaanayaan istaji hadeertaan ninkaas inaad ka fikirtid maba ahanbo naftaada inaad ka fikirtid inaad problemka dhan meel iska dhigtid ma fahantay inaad tartiib adiga naftaada ka fikirtid hooyo iyo aabi iyo cidi ma wacdo ma u sheegtay dhibkaaga Allah waa miskiin eedo dhib ma laha annaga hooyada iyo eedada iyo wax walba ku ah ma fahantay gurigaana waa gurigaaga leelana waa walaasha wiilka qabay gabadha kalena waa walaalaha anna eedada ahay waxa ma ka halaabay ma fahantay eedo marka insha Allah qalbigaaga problem iyo waxba gelinin haddana soo bax cunto iyo waxaan ku soo siiyo meesha qadada aan makeen waa miskiin gabadhan هاي نعم هذا ما تو في عنده واس عطاه هاي اي ورمبل استل لو ادل ها هاي ليلى اسمها فيرس ليلى وصو فيرس ها وساكا تكتميها ها اوكي maxaa lagu dhamarka وفيعنتي ودا داوين soo siisay daaween lagu soo siiyay waan gartay marka maxaa dhahay marka hadda ninkaas waxaad rabtaa inaad ku laabatid ما يعني ninkaas marbi inaan ku laabto laakiin bilaadanka moogtahay mar qaar way isbedeli karaan ninka waxa laga yaabaa maadaama oo hadda gurigiisa ka soo cartabo waxa laga yaabaa inuu ku xiiso oo ku raadinaa laga yaabaa moogtay maya qof walba isbedeli karaa laakiin Cabdifataax ma isbedeli karo ana og اي ما ظاهر سوا ما قال جري دونفار من ظاهره اي ما مس دوفار باه دونفار واي ما ظاهره ما ظاهره اسغنا waa دوفار kale marka Cabdifataax nin xun waaye حتى هذا سي walba uga soo tago mis bedelay de adiga laftirkadan ka yaabana moogtay ninkan oo aragtay dibka aragtay ku geystay ba adiga wali la sii joogtaa oo 5 sano ba la joogtaa la 5 sano maxaa ugu la joogay 5 sano horta maxaa ilmo ma u dhalmiya markaas 5 sano dhan qof la joogtay ma asaa diidana inaa ilmo dhalo ilmo diiday ilmo ma rabo mar hadda bucungeyga muxuu iga soo tuuray ilmo oo qof ilmo rib maxaa isku qabteen nag ma ku qaban hadda ilmo rib ma waxa sidii yani marka si qabtiin bacabaarka bacdi uu isbedeli doonaa ilmo uu rabi doonaa marka hore maad guursateen be hadduu ninkii ilmo rabin ma markii hore ma ogeen marka is guursano uu dhahay ilmo ma rabi ogo horta ma ogtay labada qof wax isku guursadaan waa ilmo markii jacaylka laga soo tago awlaad bay isku guursadaan waqti awlaad hadday meesha ku dhex jirin faa'iido ma laha wax isku qabtin baa khalad waa ogeen laakiin aad bisaaxibtii ma jecelido ilmana ma ku dhaliso hadda ilmo ima dhalaysa laakiin ayada sabab bay leedahay de sababtii baa jirta moogtay laakiin qof markuu sabab haysanin oo ilmana ilaahay ma aragtay oo ogay ilmo ina dhali karaan problem uu qabin qofkii de waxa sababta u diidaa maxay ilmaha ma ogi ilaa hadda anay waa yaabanahay muu shaqaystaa ninka lacag meel dhigta xasid ma ninku ninka xasid waa anay baan maqli jiray waa gacangeed ma ninka waa gacangeed uu dhaafay laa ilaaha ninka amal waa nin fiican ma hay waa iska furay uu shaqeera hadduu dhinto bari yu uga taga marka lacagtu waa dhintay marka waa saas dheh okay ninka nin fiican ma dheh waa nin awrkiisa xumaa weligiis xumaanta u dhashay waa qof oo halaas dhan xumaan kara ma jirto ma ogti xumaan iska keen karo xumaanta asagu u dhashay ma dhib ma laha koodhi hadduu xun yahay asaga u taallaa laakiin nin xun weligaa lama guursado waa laga leexdaa nin xun laakiin inkasta oo maaragtay wixii lama garan karaba sababtoo ah markii gurigi la soo galo keli baa la garan karaa qofkan dabcadiisa dhabtay inta ka hor lama garan karo soo ma baakan waa la qaraacaya bal furbalka waxaa imaatay gabadhii oo imaatay السلام عليكم maxaa soo doonta oryahay wariyo nin aan xishoonaynin baa tahay gurigana maxaa kasoo doonay gabadha maxaa ku daba dhig ilaahay ku daba dhig ma xishoonaysi miyaa horta hor guriga nooma baxan kule كان البراء استجي deji maxaa tahay ninka gabadhan si xun u galo oo ilmahii hataa kasoo riday maxaa tahay xayawaan xoolo maa tahay خلص ودع كوده ولا له maxaa u imaaday qolka muxuu dhacay فرشك ولا المعنى maxaa soo doonta خالد يا ريس horta ma waxay dhiisay waxaan soo doon ma dhiisay sida buuq iyo qaalay usoo gashay ninka indha adeegiisata hay kaan la qobol ay hadal islaanteeda soo doontay miska soo doonay xoolo miyaa iyadu miska waqtigaa miska qaaday maya ma gabadha aragtay dishay aragtay aabbaha dishay saa doonto ka yeelatay miyaad haddana soo doonanay wejiga kusoo doonaysa wejigii waa wala lo qalad u dhaca soo dhacana lama dhaw qalad waxa shaydaan ana soo dhaxgalaniye nin fiican hadda iska soo dhig shaydaan ana soo dhaxgalay islaanteeda u baahnay inay soo celisiin araan
waa la iska soo sidii ridii camal la iska soo celina gurigeeda lagu celiya ما هذا واحد مرسنا oo gabadha وين حاله ayada haddee ayada diyaarta inay gurigeeda ku laabato adigana aadan mar dambe arrintan aad ku laabanaynin way ku raacaysaa ديارة مردم ما ديارة أنت مردم بمدعي سو قلد دم waa mardam ma dhacayso قلد دم hadda maanta askaraan soo waday askar in lagu xiraan rabiyaale مع العسكر مسك سوودي haddee gabar baad ilmeheeda ka soo ridi ilma soo ritaanka waddanka maxaa mahaysa waa xarig هاي الرجعت هاي أنا واحد ساليرين حالنا مسؤول الريرة قبل هاي وقلت كاسوكا دعي كرا qaladkii iga dhacay ana qaladkii ma dhicin ani naagteeda si fiican nahay mana dili weligeena ma taabanin dhabankeeda ma taaban dhabankeeda si qurux badan yahay aragti waad yaab hadda barfeeri gabadha dhabankeeda si weey ما دلو إزدلان قعان way isdilaana war nima naga isdilo dumar nin naag isma dilaan saa wadada ما قعان قاد كود دعي قلنا نصور على مدو hadda maxaa rabtaa bal ishee يا hadda maxaa rabtaa أنا قصة دونت إسلامتي يا سقو ما ذا hay أنا حال مرسان راوي حاله وأقول wixii xaal leh intaa ku marinaysaa في حال يا meel kalena kuma marinaa bartan ku mari intii xaal wixii xaal leh maanta ka waata hadal way taagan tahay معنى macaana leedahay waana dilaysaa aniga kaa yaabana qofaa macaana leedahay waana dilay أنا إسلامتي وحير من ير راح بيحكي كرتا ma ka dhex baxay bartan anoo taagan hadal ma ka dhex baxay سيكون هلا إسلامتي وحال مرسان روا xaal marso waa tanaah nin rag soo mati ilaahay nin ragaa kaa dhigay حدا معانا وحده أنت بمعنى تتاي لا شدينا احنا وصلنا ليش استالا جوكتي يا حبيبتي ايه eedo war maxay tahay buuqan bismillaahi maxaa ku dhacay ninkiyaa soo laabtay wariyaahe adna soo kuma siixin intaan ku siiyay fiiri eedo ees cawro la cawrota ma maqli jirti ha waa soo cawrota waa tanaah maanta maskiin iska dhigayay maanta nin fiican isku dhigayo hay macaan kula waana dili jiraya macaan waa bila macaankaas midha sokor u soo cunay ايدو هرتا ayadana maskiinada ayadana maskiinada fiiri gabadha maskiin fiiri mee Eedo. ogolaatay ايدو هرتا هذا اللي Iska مغان daa. يا انا خلص ودع سمعان haye aawo dadkaaga anaga hal qof Waa kii keligiis qaldan. maalin walba soo taagan lama hadli karnee انا تدكي انت مجوان ماشي انا بس جواب وش قستا فمل كينا ماشي shan sano way garaacayeen فمل كينا ماشي مجوان ماشي هذا انا بس جواب فمل كينا ماشي مجوان انا فمل كينا مجوان ماشي oo adayba kaa dhigatay family dhan kaa dhigatay wax walba nin iyo walaal iyo famil aad dilay marka adiga qalad u dhaca soo dhacana lama dhahe marka wixii xaalna ogol yahay maadaama had gurigiin ay joogto ya aday hadda qofkii weynaa xaafadda weynaa tahay familka hadda saa ma naagtaana soo dooratay inaa wadatid xaaskii aan u bal maadaa iska wadaa xoolo miya xoolo xoolo maan ana xoolo aan naagtan ku quruxdan maadaa aa ujeeda labadan beri walaalka annagaa ka keensana soo moogi xana lala eedo Hoolan miskiin. wali warra fasad dalaale manina ku maalinta darsarta imaanay sidee baa kad maaragta shan sano la tuwaayde marka saa u dhalaalis manin kale ku darsarta fiiri ana hadda waan qaba moogta xiriga xalaal ay u xirantahay dhagayso weli dhagayso ma waan furin qabaa waan qabaa eedo waxa macaan waa u kaadi jirto eedo macaan warra ku hay fiiri magaca ma tiftaa iftaaxo horta hore alla siduu maskiin gabadhan adaa fiiri, qabtid fiiri gabadhan adaa qabtid xirigna nin kale ma ku xirmato diinti gabadhan adaa qabtid ma fahamti labadiina problemka dhex taagan keli ayaa loo taagay in la xaliyo gabadhan cid nin kale ku daraysa ma jiro ayadoo xarig ku xiray saaxiibadaadi waan ogolahay anaa gabadhan xalista ayadan maogtay anaa keli bay maxaaskii keliya taqaanaa ma magaalada dhan ba xaaskii keliya ka taqaanaa ma wey xaal iyo xumaan baan ogolahay hadda maxaa adi hadalku maya gabadhan aamustaankeeda sidee hadda ninkaan ugu aaminaa gabadha maya ayadaan weydiisan ayadaan wareysanay ayada kuma sheegin ma ana familkee int ma joogaan iidan familkee int ma joogaan ana iyada basa meeshan soo waa dhigay burbursaya qabiilkaaga xataa nin ka dhashay keen annaga kuguma aamini karna gabadhan eedo u kaaybe ayadaan hadasho maamada qabneedo ciddaa tahay inaa waxaa lisaala rabay inaa saa wada miya ya Maamada- maxaa ana go'aamina okay ninkan waa direynaa inuu dad waaweyn noo keeno ugaadi horta hore bini aadanka qalad wuu galaa ma 5 sano qaladka galaya maadaama uu hadda leeyahay qaladka waan ka soo laabtay walaalayaal iska kacafiye uu leeyahay gabadheedina waan rabaa gabadha hal buu ku qaadanaya hal shay buu ku qaadanaya gabadha hadduu sidan ka bedelaayo xumaatadan uu ku wado hadduu ka bedelaayo ilmaheedina uu ka soo riday ilmaha ayada rabtay hadduu hataa asaga ilma rabin laakiin gabadhii ilma u baahan gurigii ilma u baahan laba qof oo cidla guri waxay ka qabanayaan ma garanayo aan ilmana joogin ilma ma rabi sababto u dhah ilmana ma rabi ma dhigi karta ninka ma aqaana sababta ilma rabi war sababtaada ilma ku rabin maxay tahay ilmaha waaba iftiinka dhan oo gurigi seeda ku rabin sababtaa ku rabin noo sheeg ma dhaquul baad ma
maxaa tahay marka waxaa jira maxay tahay problemka jira maxay ilmo ma rabin bal waxaad ilmo ku rabin bal noo sheeg horta marka hore ilmo ma rabin Marka because hore. of ha Ilma rabin. family issue aa jire ya family issue wuxuu ma naag kalaa qabtaa naaga kala qabta naa kale ma uu qabay naa kale aan daaqo ma wani imaan leene Hay, problem islaanteedii weyn. kaama soo doonan leene problemka wuxuu misaadaan dalil haddaa dhalin see war ku qaaday ma abaan meel keenta ayadu weydii hadda su-aasha ay weydiinaysaa Hadda ayadu weydii meel keenta ay weydiinaysaa bal noo sheeg hay bal sababta noo sheeg marka sababtan ku sheegaa family issue Ah. jire ya qarash darana iska hir jirtay qarash la'aan baa jirta Ah. oo qarash la'aanta diidanta ilmaha inay Kode, laakiinse Saaqada hadda gabdhaha bixiya laakiinse maxaa hadda ilmaha irsaaqadiisa alxamdulillah ilmaha irsaaqadiisa inuu wata moogta markuu dha ilmaha adduunka ma irsaaqadiisu wata ilaahay baa irsaaqadiisa gooni alxamdulillah hadda waa ogahay bas alxamdulillah haddana hadda hasaan la jooganay ciyaal ma rabin kuma dhahay hadda ilmo waan rabaa laakiinse islaanteeda inay maxaa rabaa laashina ay israacisina ay la galto gurigeena un galnay. ayada markaas ayada raaligeli ayada waa la hadlay labadiina nis adaa dhageyso dhexdaani may diyaar waa eedo ka soo bax annaga waa idinka Waa dhex hadla- baxaynaa adiga wada fiiri hadla ninkaada wuxuu ku go'aamay ma hadduu wax iska bedelayo uu mar dambe arrintan ku dhaqaaqayni waa diyaar iskala hadal ninka soo bax eedo soo bax Waryahay. ninka nin ma lahayn Fiiri. muxuu yahay anaa waa ku siinaya hal talaan ku siinaya ma fahanti aditaxdo tala horta waxay tahay horta dumarka lama dilo waa lala qoslaa ma fahanti Ay. haddaad dishid ma ficno muraayad camal waa la ilaaliyaa dilitaankaas waa jabkii muraayad way jabay dhulka hadda ku dhaco jabtay marka gabadhaada si fiican baa loo dhowraa hadda dhabankan fiiri dhabanka saa u gashay waxan waa adi waa quruxda fiirsan lahayd baa iska halaynaysaa fahanti heesa sabo haye Ay. wax kale ma jiro sooma gaar okay seetaan fiican ahmadka nabad ay kheyr waxaan usaga tahay oo fiican dawil lagu soo siiyo maxaan badan hadda waxaa u maaday inaan ku wato gurigeen aan ku laabano ya wixii qalad oo dhacay oo iga dhacay inaan iska cafisaan u maaday maanta maadaama uu qalad iga dhacay inaan iska cafisaan u maaday aan reerkeena horaan siduu u dhaqnaya u dhaqano ya maadaama horaan aan ku xumeynaya hadda ka bilowta insha allah kuma xumeynayay farxaddaada laynka talinaya mar kasta ma isbedel weysaa kiila tahay jiri jire waan isbedelayaa maanteedii haddaan isbedelayn hadda ma ku imaanlayn mise haddaan ku nacabiyo xaafadda kaama soo dooneen jecel adi ku qaba ku imaaday gurigeena inaan dhaqanaa imaaday inuu dumooma fiicno kore marka tartiib maxaan rabaa inay raacdo alaabtaada aad soo qaato gurigeena aan ku wada noqono ya oo farxad iyo reereen say ku dhahanta aan ku wada noolaano ani adiga maanteedii waxaan rabaa gurigeena inaan ku laabano farxaddaada aan ka taliyo ya maadaama anigaan ku dhahay uwad ma rabina ya saas darteed hadda uwad waan rabaa waan jeclahay adigaan ku jeclahay maadaama kii hore uu naga halaabe ya insha allah ilaahay uu joogaa ku kale waan helaynaa kode marka inaan raacdaan raba gurigeena aan dino walaa guri mugdi uu noqdo cidlaa anaa isla sheekeysana aniga tv bis isla sheekeysana ya gurigaas laanta ma nuuraayo dhammaanteedii guriga inay raacdaan raba hayde hadda kusuga kode hay kaca alaabteeda familka la soo soo qaado hadal alaabtaada soo qaado waan israacayna okay hay ay kac macana haye fiican saata baby fiican fiicante shifti ma ka soo baxda Haa, anaa was- anaa aadahay waan daalay mataas ha soo gaar wala haye warkiisii fiican aaway eedda iyo eedo waa joogtaa guriga ku jirtaa sacdiina sacdiya ma saaxatay sacdi ninkeedaa wata de see soo ninkeeda ma u imaanin see u watee seeba u soo watee ugu wadan waayo soo asaga ma qaba ninku hadduu qabo ninkii dilayo oo ilmaha kasoo dilayso ma see u Problem. qaxay maxaa jira problemka jira muxuu marka Hee. waa la isdilaa waa la heshiiyaa maxaa maxaa heshiisa aaw gabadhaa keensada aaw gabadhaan kaysad maxaad maadaa gabadha dhashay hadda gabadha saaxiibadii waa inaa guriga keensada idinka si fudud maa ninka kusiiseen dhegeyso ninkii qabay wuu imaaday walaalayaal iga raali noqdo u dhahay xaal baan marinaya gabadheedaan u baahanahay mar dambe dilaayay waxaasoo dhan buu dhahay ayadii way ogolaatay diyaar waay eedaan la joogto way tageen fil hindu idin daaray idinkana waa fil hindina looma daarin khaladka biniaadan khalad wuu galaa hadduu khalad qalad ka uu soo galaa maxaa ninka ismaskiiminaayo waa ka soo laabtay khaladkiisu ka soo markaan laabtay wuxuu rabaa markaan wuxuu kaxayna inuu soo afjaro Fiiri. totaliba cidda soo walaa si afjar waa fudud anaa meel saaray ninka cid soo afjari karta ma jirto ma garaacday anaa qaraacayo faraaqaadii had markuu yimid ma garaacday maalinta gabadha inaan ku duufo wax yar ay dhinayd inaan dilo wax yar ay gagaa dhinayd celiyo in albaabka lagu Dhegeyso. soo hadduu waan u sheegay waxaan ku dhahay hadday gabadha mar dambe wax soo gaaraan Ah. adaa lagu xiraa
gudaha war ninkan waa fadhise gudaha fadhisanaysa ninkan maaragtay directive rabaa inuu diro markaan soo noqodkan uu soo noqdo waxbuu damacsan yahay may odayaal mu keensaday odayaal mumkin keligiisa socday ha keligiisa gabadha miskiinta ahayd oo uu dilay oo rafaadsaneed daawada u soo qoray keligiisa iskaga darteen keligiis laa ilaaha idinka laftirkiina waxaa tihiin naagi waa ninkeeda mugta maxaa ninkeeda idinka barafaa ayada bedelka diidi leed ba waxay tiri waxa igu go'aamisin baan qaadana kabar haddayna u diidaan see ugu diidana ninkeeda waay ma ninkeeda u diidana hadda ninka maninba waxaas maninba nin ma laakiin maanta uu calacala ka baxay hataa arki lahayd adi laftiga u naxaleed si calaa loogu baxay kaas iyo aniga naxdina kaas iyo calo jiraan problem ma jirtay problem ma jirtay isdaji gabadha gurigeeda tagtay gurigeeda ku laabatay hadduu problem ka imaadana anaga naqana sida loo xaliyo iska daadi faraaka gabadha ay raddi wax gaaraan idinka tushiina waa idinka wax ma gaaraan ama gaar gurigiis waa naqana gurigiis waa garanaa mugta bas ugu daadi dhib ma laha waa arkayna ma soo gaaraan ilaa khayr ha kaliya walaa waa daalan reerkoodana uu raaday gabadhan reerkooda Soomaaliya joogan halkan wacdi inta wacdi reerkiin gabadhiina kala ka haysta waxa problem ku haysta hada qof dhalinyaro waa magaaladeedan iska joogi lahayd waxa cunana waa nala cunay waan iska shaqaysanaa dhib ma laha iska ka bedelo aniga waxa aadayaa isbitaalkii haye aniga waa nasanahay abara saxna madaxa xanuunaya haye stajiya hay ma caadi ana